بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المغرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ودرسي النشرات ودروستي مسلسل كاهيد وكساب سنيد قصص الأنبياء. درسينا مانتا والنبي الله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نبي صالح wuxuu ka mid ahaa oo qabiilkiisu ahaa qawmu thamuud. nasabkiisu wuxuu galaa baa la yidhaahdaa sam binu nuux, oo wuxuu ka mid ahaa ambiyadii yani awlaadii nabi nuux yani faraceedii ayuu ka mid ahaa. nabiyullaahi saalix qur'aanka ilaa 9 jeer baa lagu sheegay. suurado badan baa ilaahay kaga qisooday nabiyullaahi saalix iyo qoomkiisii oo reer samuuda, yacni waxyaalihii dhex maray iyo mucjizadii la siiyey iyo qawmu thamuud sida ay kula mucaamaloodeen, ay kula dhaqmeen nabigi ilaahay usoo diray yaa ilaahay in badan qur-aanka nooga qisooday. suuradaha ka hadlaya qisatu saalix wa qawmuhu waxaa ka mid a suuratu alacraaf, suuratu huud baa ka warrantay, suuratu shucaraa, suuratu namal, suuratu alxijri, suuratu qamar, suuratu washamsi fusilad, zaariyaat, xaaqa. yani suuradahaas oo dhan waxay ka warramayaan qisatu thamuud iyo wa nabiyullaahi saalix. nabi saalix qabiilka loo diray uu ka dhashay reer thamuud la oran jiray waxay degi jireen oo degaankoodu ahaa meel haddaba macruuf ah oo la yidhaha madaa'inu saalix baa loo yaqaanaa. xijaaz iyo urdun bay udhaxaysaa. xijaaz waa dalkan sacuudiga, iyo urdun yacni dalka la yidhaahdo ayay udhaxaysaa. aasaartoodii iyo meelihii ay degi jireen weli waxbaa kasii baaqi ah oo aasaartoodii baa baaqi ahaa. la yidhahdo madaa'inu saalix ayaa loo yaqaanaa. reer thamuud waxay ahaayeen qoladii ku xigtay ama qabiilkii ku xigay reer caad markii ilaahay halaagay. intii nabiyullaahi huud raacday iimaanka qaadatay mooyaane wixii kaloo dhan markii la halaagay waxaa ka dambeeyey qawmu thamuud. ilaahay baa u nicmeeyey, yacni qabiil aada u fara badan bay ahaayeen. ilaahay baa dhulka makaniyey, wa ilaahay baa u nicmeeyey oo dhulka madaa'inkaas la yidhaahdo oo udhaxeeyo yacni urdun iyo xijaaz udhaxaysa, dhulkaasay degi jireen. dhulka ayay camireen, beero waaweyn iyo guryo aada u dheer dheer ayay lahaayeen. buuraha ayay guryo ka samaysan jireen. ilaahay baa makaniyey dhulka subxaanahu watacaala. waxay sameeyeen marka la yimaadeen fasaad iyo inay ilaahay keyrkii caabudaan ayay la yimaadeen. nabiyullaahi saalix baa ilaahay usoo diray subxaanahu watacaala isagoo rasuul ah, loo diray ayaga, uguna yeerayo ilaahay cibaadadiisa iyo tawxiidka. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanka noogu sheegayaa isagoo nooga warramayo dacwadii nabiyullaahi saalix. wa ilaa thamuuda akhaahum saalixa qaala yaa qawmi icbudullaha maa lakum min ilaahin gayruh qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum hadihi naaqatullahi lakum aayatan fadaruuha ta'kul fi ardi illah walaa tamasuuha bisuu'in fayaakudakum cadaabun aliim.
nabi saalex reer samuud ayuu la hadlay wuxuu yidhi qoomkaygiiow ilaahay caabuda ilaah kale ma lihidin ama axad kale oo ilaahay aan ahayn oo cibaado mutaystay ma jiro tawxiidka qaata waxyaalihii uu kula hadlayay waxaa ka mid a ilaahay nooga qisooday wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caad wabawa'akum fi lard tattakhiduuna min suhuuliha qusuuran watanxituuna aljibaala buyuuta fadkuruu aalaa'a allah walaa tacthaw fi lardi mufsidiin qoomkaygiiyow xusuusta markii ilaahay uu idinka dhigay khulafo iyo dadkii ka dambeeyey ree caad ee ilaahay dhulka makaniyey ayaa ilaahay idinka dhigay barakaadkii dhulkaa la idiin furay nicmaa ilaahay idin siiyey wabawa'akum fi lard dhulkaa ilaahay idin makaniyey tattakhiduuna min suhuuliha qusuura watanxituuna aljibaala buyuuta yacni meel kastaba yacni guryo ayaad ka dhisateen iyo sare aada u dhaardheer iyo guryo dheerdheer oo dhulka siman ee gogolka ayay guryo ka dhisanayaan buurahana way qodayaan oo way qorayaan markaasay guryo ka samaynayaan fadkuruu aalaa'a allah walaa tacthaw fi lardi mufsidiin ilaahay nicmooyinkiisa xusuusta dhulka ha fasahaadinina oo dulmiga iyo shirkiga iyo ifsaadda dhulka ka daaya yacni saasay ahay dacwadii nabiyullaahi saalex reer samuud ma aysan aqbalin dacwadii ma aysan aqbalin rasuulka way ka hor imaadeen nicmadii ilaahay ugu nicmeeyeyna kuma aysan shukrinina way kufriyeen wayna diideen inay rasuulka raacaan fasaadkii iyo dulmigii ay wadeen bay kusii madax adkaadeen ilaahay baa noo sheegay qisadoodii kadabat thamuudu lmursaliin id qaala lahum akuuhum saalixun alaa tattaquun innii lakum rasuulun amiin reer samuud waxay beeniyeen rusushii loo soo diray oo yacni qoomka rasuulkii loo soo diray hadday beeniyaan waxay la mid tahay ayagoo rususha ilaahay soo diray oo dhan beeniyey haddii ay rusushii rasuul ka mid a waa rasuulkii loo soo diray ayaga markaa ay rumeeyaanna rusushoo dhan bay wada rumeeyeen leanna rususha dacwadoodu hal bay ahayd tawxiidka ay dadka ugu yeerayeen marka reer samuud waxaa ilaahay ku sheegay inay rusushii ilaahay soo diray oo dhan ay beeniyeen kadabat thamuudu lmursaliin reer samuud rusushii loo soo diray bay beeniyeen baa ilaahay leeyahy yacni rasuulkii saalixaayee loo soo diray bay beeniyeen markaa rusushii oo dhanba way beeniyeen id qaala lahum akuuhum saalixun alaa tattaquun nabi saalix wuxuu ku yidhi war ilaahay ka baqa innii lakum rasuulun amiin rasuul ilaahay soo diray oo adinka loo soo diray baan ahay ilaahay ka baqa saasuu ku yidhi fattaqullaha waadiicuun ilaahay ka baqa oo adeeca reer samuud ma aysan rumaynin rasuulkii ma aysan rumaynin dacwadii ilaahayna way diideen nabi saalex wuxuu u caddeeyey wixii ilaahay uu ku amray subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay abuuray oo khaaliqoodii yahay inuu ilaahay u nicmeeyey dhulka kan inay camiraan inuu ilaahay makaniyo ilaahay u fududeeyey oo wax walbaba loo furay yacni beero ay abuurtaan iyo guryo dheerdheer oo ay degaan iyo wax kastoo imkaaniyaad oo dhulka yacni manaaficdiisii oo dhan baa ilaahay makaniyey ree caad markii la halaagay qoomkii bedele bay noqdeen reer samuud oo ilaahay dhulkan ugu nicmeeyey bay noqdeen waxaa ka mid ahaa hadallihiisii uu kula hadlayey huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha fastakfiruuh huma tuubuu ilayh ina rabbii qariibun mujiib ilaahay waa kii idin abuuray idin khalqay dhulka ayuu idin makaniyey ilaahay dembi dhaaf weydiista ilaahay u toobad keena ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka ducada aqbalo addoonkiisana maqlayo u dhow marka uu yacni baryo yacni sidaasuu ku lahaa nabiyullaahi saalix qoomkiisii jahligoodii iyo cinaadkii iyo madax adaygii ayay kusii adkaadeen wayna diideen inay rasuulka warkiisa dhegaystaan oo waxay ku yidhaahdeen oy jawaabtoodii noqotay qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada atanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaa'una wa inana lafii shakin
مما تدعونا إليه مريب. waxay yidhaahdeen saalixow waxaad ahayd nin agtaanada ku weyn oo qiimala dhexdaanada ahayd inta aadan waxaan hadda aad noogu yeeraysa aadan samaynin ma waxaad noo diidaysaa waxaan aabbayaalka anagii ka soo gaarnay oo caabudi jireen waxa aad noogu yeerayso oo in ilaah keliya la caabudo ah shaki baa nooga jiro ma aaminsanin mana rumaysnin niyahow kugu raaci mayna waxa aad sheegayso sidaasay markaa jawaabtoodii noqotay way diideen inay xaqi raacaan kibir iyo isla weynin iyo gaalnimo iyo kufri ayay la yimaadeen way diideen inay rasuulkii raacaan calayhi salaatu wasalaam hadallahoodii iyo cinaadkoodii iyo madax adaygoodii bay sii wateen oo hadallahoodii waxaa ka mid ahaa ay ku lahaayeen rasuulka ugu jawaabayeen qaaluu innamaa anta min almusaxariin waxaabaad ka mid tahay niyahow dadka la sixray baad ka mid tahay waad sixran tahay hadalka aad ku hadlayso hadal qof yacni caqlila uu ku hadla ma aha waad sixran tahay rasuul ma tihid wax hadda aad noola imaatay oo aniga aan raacaynana ma jiro saasay leeyihiin dhexdoodii baa isla hadlayo markaasi waxay leeyihiin abasharan mina waaxidan natabicuh innaa idan la fii dalaalin wa sucur ma qof bini aadan ahoo annaga naga mid ah miyaa ilaahay rasuul ka dhigay makaasaan raacaynaa oo wuxuu noo sheegaya aan rumaynaynaa haddii aanba raacno bashar bini aadan ahoo annaga naga mid ah haddaan raacno baadi baanba noqonayna a ulqiya dikru calayhi min baynina bal huwa kadaabun ashir asagoo na dhex jooga miyaa waxyi lagu soo dejiyey oo rasuul laga dhigay maya been buu sheegayaa waxaan rumaynayna ma aha marka nabi saalixna markaa hadalkiisii muxuu ahaa sayaclamuuna gadan man ilkadaabu alashir yaa ilaahay nooga qisooday subxaanahu watacaala qofka yacni beenaalaha ah ee kadaabka ahee sharta badan waa la ogaan doonaa midka uu noqdo inuu ayaga yahay iyo inuu rasuulka ilaahay soo diran yahay way kala caddaan doontaa arrintu gaalnimadoodii bay ku madax adeygeen way diideen inay rasuulkii raacaan calayhi salaatu wasalaam qayb yar oo dadkii yacni ka mida shacabka ahaa ka mida ayaa iimaankii qaatay kuwii madaxdooda ahaa waxay yidhaahdeen marka hadduu saalixna sii dhex joogo oo sidaa noo sii dhex joogo oo dadka waxun u sheego yacni dad badan buu naga duufsanayaa arrintiisa aan ka hor tagno wax uuna yacni samayn karin aan u dirno si markaa dadku ay oga cajizaan oo waxa uu sheeganaya inuuna waxba ka jirin ay dadku u rumeeyaan aan xujaynay yidhaahdeen markaa aan xujayno oo marka hore yacni ayahay aan xujo aan ku xirno waxuusa keeni karin aan u dirno marka waxay su-aasheen yacni mucjizaad natus bay yidhaahdeen mucjizadaana waa yacni ayagaa isu sheegay oo waxay madaxdoodii ku tashadeen yacni wax mucjizo ahoo arrin adag ah oon qofnaba keeni karin aan u dirno si arrintiisu marka ay u beenowdo markuu keeni waayo oo loo ogaado waxay yidhahdeen marka waxaan kaa doonaynaa saalixow haddii aad rasuul ilaahay tahay waan ku raacaynaaye dhagaxaas weyn ee halkaa ku yaalla jabalkaas ama buurtaas waxaad ka soo saartaa hal iyo qurbaceedi qurbac yaroo ay wadato hal yacni tilmaanteeda ayagu ay tilmaanteen waa hal weyn oo intaa la eg oo sidaa iyo sidaa u eg oo marka nabiyullaahi saalix ilaahay buu bariyey subxaanahu watacaala ilaahay baa ajiibay subxaanahu watacaala fastajaaba allahu dacwatahu ilaahay dacwadiisii buu aqbalay waxaa ilaahay u soo saaray oo dhagixii oga soo saaray biqudratihi subxaanahu watacaala hashii ayaga ay tilmaanteen sifadii ay tilmaanteen leh oo yacni qurbac wadato ayaa dhagixii ka soo baxay nabiyullaahi saalix marka wuxuu ku yidhi soo miina weydiisanin hal tilmaantaa iyo tilmaantaa leh dhagixii baa laynkaga soo saaray wataa hashaa iska ilaaliya haadihi naaqatullaahi lakum
تنوى هشي إلهي يعني وحا الله إضافين إضافة يعني إضافة تشريف وتعظيم بالله وهو يعني وهل معجزة وإلهي حقيسة لا إذن كغا كيري سيدي أد ويديستين وأد دلبتين هشا مركا إسكا إلالية هشا إسكا إلالية قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمصوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وهشي إلهي وآيات معجزة وهو عد هشا إسكا إلالية هتابنين ووحدي باتاه وقيسنين ومركا عذاب أدق إذن كسو دقو عذاب أدق با إذن كسو دقو هدي أد هشا تابتان هشو مركا وهل معجزة وحاصفات كذا كمدا بيها أي كعبيان هل مالين هشا أيا عبيس اللوغو تجي مايو مالين تكلاي أيو مركا ليهين وأيو عبيان مالين هشا عبيسو مالين أيا عبي مركا مالين يعني بيه عبيان ويدودي جوغيان وعيالك كعبيان مالين تبريو كلانا وحي عبي لهايان ويصحي قادنيان وبيهو دي مال بيكو شبانيان مالين تادن بمركا هشا كليجيدون با عبيسو cid kale oo biyaha la wadaagi karto ama la cabi kartaa ma jirto kaligeedun baa biyihii cabi ayaguna waxay ku deeqaysaa dhammaantood waxay ahaayeen oo dhan caanay ku deeqaysaa oo hasha waa hal aad u caano badan oo yacni qabiilka reer Samuud oo idil yay hasha caano ku deeqaysaa marka hashi sifadeedii saasay noqotay hashi baa marka mucjizo iyo cajiib ku noqotay in badan oo kamida oo awal dadkii diidanay oo nabi saalix ka hor imaadana kamida ayaa markay mucjizadii arkeen ayay ilaahay rumeeyeen oo ay qaateen rasuulka raaceen tiiba marka hadana dhibaato ku sii noqotay kuwoodii madaxda ahaa wixii ay qabsadeenna waa lagu xujeeyay oo mucjizadii waa la siiyay nabiga ilaahay wixii wax alla waxay sameeyaan bay marka garan la yihiin way fikireen muddo kadib hadana كودي مدحدا هابا waxay leeyihiin muuminiintii la hadlayaan قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه كوي مدحدا هابا waxay leeyihiin muuminiintii waxay u leeyihiin mustadcafiinta ahaa oo dadka inta iimaanka qaadatay in yar bay ahaayeen way markaa way liidayaan oo qolyahan kale waa kuwii xoolaha iyo madaxda iyo maamulka yani qabiilka oo dhan ba lahaa weeye ما واحد آمن سنتهين وحا يعني صالح إن إلهي حقي سلقا سودري والرسول إلهي مساسات آمن سنتهين قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون هابا يلادين وحن آمن سنهي إن إلهي حقي سلقا سودري والرسول إلهي أويهي ساسا آمن سنهي وانا الرمي سنهي وانا الراعني وحي يلادين مركا كوي مدحدها annagu waxa aad sheegaysaan waan diidnay waan ku kufrinay nabi saalixna ma rumaysnay inuu nabi yahay qaala alladheena istakbaru inna billadhi aamantum bihi kaafiruun waxa aad rumayseen oo saalix rasuulnimadiisa ah annagu waan diidnay yiraahdeen ma aaminsanin ma rumaysnin bay yiraahdeen marka mu'amaraad bay sameeyeen waxay marka ku tashadeen inay hasha dilaan hashan waa in la dilaa bay yiraahdeen si ay meesha uga baxdo arinteeduba uga baxdo waa inaan yani hashan dilna ayay yiraahdeen sidee baa marka hashi lagu dilayaa hashi sidii lagu dilay lahaa baa marka culays noqotay qofkii dili lahaa iyo sidii lagu dili lahaa baa marka si adag noqotay markay arintaas yani mu'amaradeedii muddo ay wadeen waxa marka soo baxay laba dumar ah laba hablood ama laba islaamood oo reer Samuud kamid ah oo laba islaamood oo xun ah mid magaceeda waxa la oran jiray Saduuq baa la oran jiray ibnatul Muhayya waxay ahayd islaan aad u qurux badan hanti badan iyo maal badanna leh nin kuwii sharta badnaa kamid ah Misrac la oran jiray ibnul Muharraj la oran jiray ayay nafteeda u bandhigtay oo waxay tiri haddii aad hashaas disho
waad i guursanaysaa maalkayga iyo anigaba dee yacni adigaa iska leh haddii aad hashaa disho ood gowracdo. midda labaad islaamta labaad cunaysa la oran jiray bintu qunaym islaam weyn bay ahayd ayadu 4 gabdhood bay lahayd oo qurqurux badan. reer samuud kii ugu shaqisanaa ee ugu khayr darnaa waa midka hasha dili doonay qudaar binu saalif baa la oran jiray. kaasay la hadasho waxay ku tiri haddaad hasha disho 4tayda gabdhood mid alla midaad rabtaan ku siinayaa, midaad ka doorato ayaan ku siinayaa. labadoodii baa marka arrintii iyo go-aankii ballankii inay fuliyaan ayay go-aansadeen oy ballan qaadeen. kuwii ashraarta ahaa ee sharta badnaa bay yacni kasoo dunteen, dad kasoo dunteen ilaa 9 qof bay noqdeen. marka 9 qof ayay noqdeen, 7 kale ay heleen, 9 bay noqdeen. ما شاء الله شيء هو مغلق. sagaal bay noqdeen. 9ka ayaga ah waa kuwa ilaahay uu noogu sheegay في سورة النمل وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. waxaa ku sugnaa magaalada 9 yani mufsidiin ah oo aan waxba hagaajinaynin. marka waa 9kaas qof oo reer Samuud ka mid ah waxay markaa ku tashadeen hasha inay dilaan, nabi saalixna ay dilaan. labadaa go-aan bay qaateen. hashi ayay markaa dileen. qudaar binu saalif midka la yidhaahdo oo 9ka ka mid ahaa oo ilaahay fi suurati washamsi uu noogu sheegay idin bacasa ashqaaha wa ashqa qawmi samuud. qudaar binu saalif ninka la yidhaahdo ayaa markaa hashi dilay. hashi bay dileen oy boqon gooyeen. markay hashi dileen qurbici wuu cararay baa la yidhi, buurti ayuu fuulay, dhagax ayuuna galay, dhagaxii buu galay oo way waayeen bidhaantiisii, way waayeen inay dilaan bay rabeen asagane. laakiin qurbici dhagaxii ayuu galay oo ma aysan arag dibdaba oo ma arag. yani mufasiriintu waxay yidhahdaan iyadoo yani laga soo warinayo axaadiis kusoo arooray in daabada yani hadhow saacadda qiyaama calaamaadkeeda kamid oo soo bixi doonto inuuba ahaa yani hasha fasiilkeedii ama qurbici inuu noqon doono. markay hashi dileen nabiyullaahi saalix ilaahay buu beriyey subxaanahu watacaala. ilaahayna wuxuu u sheegay in la halaagi doono reer samuud oo halaag uu kusoo degi doono. u sheeg baa la yidhi cadaab baa u imaan doone. marka wuxuu ku yidhi nabiyullaahi saalix amarkii ilaahay baa diideen, hashii ilaahay ee mucjizada ahayd ee la idiin soo dirayna waa disheen. gaalnimo iyo fasaadkii baad yani ku madax adeegteen oo la idinka kari waayey. naseexadii iyo wixii aan idinkugu yeerayo khayrka ahaana waa diideen. cadaab ayaa idin imaan doono oo idinku soo degi doono. muddo intaan loo qabanin waxay markaas yidhaahdeen saalixna waa inaan dilnaa asagana, oo asagana aan arrintiisa ka takhallusno oo aan dhamayno. saas ay yidhaahdeen. qolada ayagoo hashi dishay ayaa marka fasaadoodii iyo xumaantoodii ayaa markaa yani kusii madax adeygay oo waxay yidhaahdeen nabi saalixna waa inaan dilnaa asna. qaaluu taqaasamuu billahi lanubayitanahu wa ahlahu
ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. waxay isku dhaarsadeen nabi saalix iyo ehelkiisii inay habeen intay ku soo dheermadaan ay miraan oo eber ka dhigaan, markaana ay yiraahdaan anagu war uma hayno, mana ogin wixii halaagay oo wax u geystoo laayay, ma garanayna. saasay yiraahdeen, ku dhaartaan arrintaana run baan ku sheegaynaa, waxba kama ogin, aan sidaa ku dilna yiraahdeen, hadhowna aan sidaa nidhaahno. wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun. makri bay maleegeen inay dilaan nabigi ilaahay oo ay dhibaato u geystaan bay ku go'aansadeen makrigaas, oo hadhowna ay inkiraan. annagana wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala, makrigoodii baan ku abaalmarinay. wamakarnaa makran, makrigoodii baan ku abaalmarinay, abaalmarintiisii iyo jazihiisii baan u diyaarinay. wahum laa yashcuruuna, iyagoon waxba ogeyn. fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim annaa damarnaahum waqawmahum ajmaciin. ayagii waa kuwii tashanaya 9 ahaa iyo qoomkoodii reer samuud oo dhan ba intii iimaanka diiday oo shirkiga iyo dulmiga laga kari waayey waan halaagnay baa ilaahay yidhi. annaa damarnaahum waqawmahum ajmaciin. ayagii iyo qoomkoodiiba waan halaagnay. fatilka buyuutuhum khaawiyatan bima dalamuu inna fii dalika laaayatan liqawmin yaclamuun. guryahoodii iyo degaankii ay degi jireen wataa khaaliga ah, dulmigii ay sameeyeen sababteeda taa cibraa ugu sugan dadka wax garanayo. dadka ilaahay amarkiisa qaadan waayo oo rususha loo soo diray beeniyo oo xaqa raaci waayo, sidaa unbay aakhirkoodii iyo ciribtoodu noqoni. guryahoodii wakaa khaali ah, degaankii ay degi jireen oo camirnaa wakaa eberka ah, wax jooga aan lahayn. fatilka buyuutuhum khaawiya bimaa dalamuu baa ilaahay. dulmigoodii sababtiisii ayuu dhulkoodii oo dhan eber u yahay, waa dhammaadeen, wax ka nool ma jiro, naf iyo maalba waa eber bay noqdeen. dadka wax garanayo ee wax fahmahayana aayad iyo mucjizay u tahay weeye. waanjayna aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun. dadka mu'miniinta ahaan badbaadinay, kuwii nabiyullaahi saalix raacay, rasuulka ilaahay iyo intii mu'miniintaydoo raacday baan badbaadinay. wakaanuu yattaquun, iimaanka lahaayee naga baqi jiray ee cibaadada ku dadaali jiray, shirkiga iyo xumaanta iska ilaaliyey, kuwa waan badbaadinay baa ilahay yidhi subxaanahu watacaala. nabiyullaahi saalix qoomkiisii wuu la hadlay, wuxuu yidhi 3 beri unbaad nooshihiin, 3daa maalmood iska raaxaysta, iska noolaada, cadaab baa idinku soo degi doone. soo hashi miina gowracin. faqaala tamatacuu fii daarikum 3 ayaamin dalika wacdun gayru makduubin. 3 beri iska noolaada, wax iska cuna, 3daa maalmood unbaad muddo haysataan. waa wacdi iyo ballan ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo sugnaaday oo gayru makduubin, marnaba aan la beeninaynin oo la baajin doonin weeye. 3daa beri baad haysataan. saasuu marka qoomkiisii u sheegay. 3dii maalmood waxaa la yidhi maalinta koobaad ee yani 3da maalmood axad baa la halaagay, ayagoo ay dhammaadeene yani khamiis ayuu ahaa yoomka koobaad. yoomkii koobaad bay dhammaysteen. maalintii markuu waagu u baryay wejiyaalkoodii baa isbedelay, sufra ayuu noqday wejigoodii wuu isbedelayoo sufra ayuu noqday, yalow buu noqday. falamaa amsuu, markay qoraxdii u dhacday maalinta ay dhammaysteen, naaduu way isu dhawaaqeen, alaa qad madaa yawmun min alajal. 3dii beri maalin baa ka tagtay. uma asbaxuu fi lyawmi thani, maalintii labaad baa waagii u baryay, wahuwa yawmu ljumca weye. wawujuuhuhum muxmira, wejiyaalkoodii wuu guduuteen, kulli waa wada guduudan yahay wejigoodii. falamaa amsuu, markay gabalkii qoraxdii u dhacday, naaduu way isu dhawaaqeen, alaa qad madaa yawmaani min alajal, muddadii 2 maalin baa dhammaatay. uma asbaxuu fi lyawmi thalith, maalintii 3aad ayay waa bariisteen, wahuwa yawmu sabti weeye. wawujuuhuhum muswadda, wejiyaalkoodii waa madoobaan, kulli wejigoodii waa madow yahay. falamaa amsuu, maalintii markay qoraxdii u dhacday,
way dhawaaqeen way isu yeereen alaa qad madal ajalu ajalkii wuu dhammaaday 3 maalmood waa dhamaatay habeenkii bay baryeen falamaa kaana sabixatu yawm al-ahad maalinta axadda subaxeedii markii la gaaray تأهبوا ويديار قروا وقعدوا ينتظرون ماذا سيحل بهم من العذاب سدح بريء إن الله بلن قاضي وادماتي محا ما أنت نوع إيمان دونه هل كي قدد بيقوقتين قدد بيقودين قدد كي بيقلقلين وهل سوغيا حقين لغا إيمان دونا حقين لغا إيمان دونا مؤقدين على لغا إيمان دونه وحاو إيمان دونه وكل عد دونه اسمه وراح دبا صوبح ذي qoraxdii markay sidaa u soo baxday yaa waxay u maleeyeen in ba loo kaadiyey oo dib looga dhigay waxay yidhahdeen war qoraxdii baa soo baxday weli wax ma aragne marka ayaa jibriil baa soo baxay qoraxdii meeshay ka soo baxaysay dhinaceedii ayay ka arkeen muuqaal ka soo muuqdo qoraxdii qariyey markaasay godadkii madaxa ay ka soo bixiyeen bay ka soo baxeen bay ku carareen جبريل بأمرك كوقيلي فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين بإلهي وحاقبتي صيحوا يعني صيحة لقوها لاقي قوم صالح جبريل باكوقيلي قيلدي وكوقيلي هل مركلية أو رواقي يعني لا أركبه ونهي بأستاقي ونهي باكود حدعي ونهي واحد مدينتين لسوق قبتين لسوقوي qayladii kaliya markaasay mayd halkiiba ku wada dhaceen dhulkina waa la gooyay waxa la isugu daray markaa lulid dhulkii lagu lulay iyo qayla la isugu daray markaasay nafti ka wada baxday fa asbahu fi diyarihim jaasimin bilahi maydkoodii iyo jisadoodii baa sidaa u daadsan oo wax ruux oo ku jirta aan jirin way dhamaadeen anna damarnahum wa qawmuhum ajma'in bilahi انظر كيف كان عاقبة مكرهم bal dulmigoodii iyo makrigoodii ay nabi saalix u maleegayeen iyo mu'miniinta iyo dhibaatadii iyo fasaadkii ay sameynayeen ciribtoodii waxay noqotay bal fiiri baa ilaahay anna damarnahum wa qawmuhum ajma'in ayaga iyo qoomkoodiiba waan halaagnay kuwii madaxda ahaa iyo kuwii ashraarta ahaa ee dulmiga iyo dhibaatada iyo ka shaqeynaya makriga iyo fasaadka iyo qoomkoodii oo dhanba waan halaagnay fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu إن في ذلك لآية لقوم يعلمون قريهودي يدقان كودي وإبر وحكنوا المجرى ولا بابئية إبر با إلهي كدقى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر قيل أيام كدر الرئيبا إلهي لي جبريل با هل مركو قيلي مركاسي هل مركلية وحين نقدين بالله الشفي أوكالي قول كي سيدا أوطادين روح دي با كوضا بحضي markaasay wada dhamaadeen kulligood xabadna kama noola ilaahay waa halaagay reesmud waa la halaagay waxa ilaahay badbaadiyey subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi saalix iyo mu'miniintii raacday baa ilaahay badbaadiyey markii ayagii la dhameeyey oo waxay nicmo haysan jireen iyo waxay wanaag lahaayeen iyo guryaha waaweyn oo ay lahaayeen wixii oo dhan waxba ooma tarin famaa aghnaa canhum maa kaanuu yaksibuun waxay kasbaayeen iyo waxay haysan jireen midna wax uma tarin waa la halaagay way baaba'een kaan lam yagnaw fiiha alaa ina samuuda kafaruu rabbahum alaa bucdan lisamuud baa ilaahay waaba ayagoon weligood ahaanin ayagoon jirin bay la mid noqdeen ree samuud way kufriyeen rabbigood bay ku kufriyeen qowmu samuud alaa bucdan lisamuud baa ilaahay ree samuud halaag baa usugnaatay bucdi baa usugnaaday waa la halaagay waxaa ilaahay badbaadiyey subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi saalix iyo mu'miniintii baa ilaahay badbaadiyey wa anjayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun baa ilahay yidhi waxaan badbaadinay baa ilaahay yidhi kuwii iimaanka iyo taqwada lahaa ee nabiga raacay ee amarkeenna qaatay kuwaa waan badbaadinay wax dhibaato oo taabatayna ma jiro nabiyullaahi saalix markii qoomkiisii la halaagay asaga iyo mu'miniintii la socotay waxay u wareegeen markaa falastiin xaggeeda ayuu u wareegay dhulka shaam buu degay falastiin buu degay muddo ayuu markaa halkaas ayuu nabiyullaahi saalix ku sugnaa wuxuu yimid haddana maka ayuu yimid
oo beydka ilaahay bay ambiyadu usoo xajin jireen oo imaan jireen halka ayuu yimid muddo ayuu ku nagaa baa la yidhahdaa maka uu ku nagaa fa aqaama biha yacbudu llaha xataa maata maka ayuu ku dhintay nabiyullaahi saalix oo maka ayuu ku aasan yahay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida cabdullahi bin cabbaas laga warinayo wuxuu soo maray meesha la yidhahdo waadi cusfaan waadiga la yidhaahdo markuu xajinayo isagoo xajinayo abubakar buu marka weydiye oo wuxuu ku yidhi yaa abaabakrin ayu waadin haada waadigan kee ahaa markaasuu abubakar wuxuu yidhi waadi cusfaan weeye ya rasuul allah wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad mara bihi huudun wa saalixun calaa bakaraatin khadmuhum alliifu azwirahum alcabaa waardiyatuhum annimaar yulabuuna yaxujuuna albayt alcatiiq halkan waxaa soo maray oo mari jiray nebi huud iyo nebi saalix oo gaadiid saaran macnaha geel saaran rukuub bay saarnaayeen yacni oo hoosgunti iyo go' kore ayay qabaan way talbiyeysanayaan beytka ilaahay oo catiiqa ayay xajinayeen saasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam halka ayuu markaa nabiyullaahi saalix maka ayuu ku dhintay makaana lagu aasay baa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa sida ibnu jariir utabari uu tafsiirkiisa kusoo naqilayo wuxuu leeyay nabiyullaahi saalix maka ayuu ku dhintay wa huwa ibnu 58 sana 58 sana ayuu jiray qoomkiisana 20 sana ayuu dhex joogay oo rasuul ahaa iyo dacwadii iyo diinta uu ugu yeerayay sala allahu calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wasalaam qisadii nabiyullaahi saalix iyo